جماهير توي السلام يا ملك استقدوني ذا شوكتامبا وحن شعلها هالكن إنان collectively أم بالجملة با وجوابه dad badan oo su'aaliga soo weydiiyay arinkii aan daarad waa genius dad badan baa cuncunku ku dhacay allergy ka qaaday kelmadii daarad waa genius Soomaalidu inteeda badan ba runta ma jecelo waa mujaamalad beenta ayay ku faraxdaa laakiin runtu way dhibtaa quruxda iyo sharafta ninka walaalka leeyahay inaad ka xumaato ma oo kumaran ka samaysan marka dhamaantood waa u jawaabaya qof kasta oo u garta jawaabteedaasi inay macquul tahay amba logic tahay waxaan jeclaan lahaa inaad ii shar garaysan si ay u gaadho kuwa kooxda xanaaqsan horta waxaan idinka bilaabayaa barigii gumaysiga waxaa jiraya boqor la yiraahdo boqor Cali Yuusuf autonomy bay lahaayeen daaroodku autonomy waxa la yiraahdo ama maamul iyagu ay iska lahaayeen baa jira Soomaali waxay ku soo biirtay iyagoo la injineero iyo dhaqtarro iyo bayloodo oo administration ka yaqaan ayay Soomaalida oo qaawan marka oo primitive ahayd ayay ku soo biirtay iyaguna aqoon bay lahaayeen marka durugsan oo maamulka ayay lahaayeen oo ka horeeyay Soomaalida waxa kale ku xijisay ninkii la oran jiray Sayid Maxamed Cabdullaah Xasan waa ogtiin Ingiriiskii inuu la dagaalamay ku celin maayo waa ogtiin iyo wixii uu ka dagaalamay inta waa ogtiin daarood buu isaguna Maxamed iyo ahaa Sayid Maxamed Cabdullaah Xasan wilwaal ninka leeyahay lamid buu ahaa iyaga ayuu taariikhda ayuu ku jira wilwaal Axmed Guray daarood buu ahaa Axmed Guray ninkii la oran jiray daarood buu ahaa hawataako gabdhaha markaan imaado gabar daarood ah iyaduna waxay ku suntan tahay halgan iyo gumaysidiid ayay ku suntan tahay markii la halgamayay waxaan ku dari karnaa oo marka Soomaali oo dhan isku soo daro waxa iyaga meel la istaagi karaa in la oran jiray Maxamuud Xarbi iyo Maxamed Rashiid iyo nin la oran jiray Cabdiraxmaan Candhoolo oo intooduba gumaysidiid ah Maxamuud Xarbi iyo secretary-giisa la oran jiray Maxamed Rashiid oo ahaa reerka garxajis la yiraahdo inuu habar yoonu sahaab aanu malayn iyo Cabdiraxmaan Candhoolo oo ciidagal reerka la yiraahdo marka taariikhda la eegayo iyada isqorayse been anigu ma waxaan sheegay markaan nimaadno modern society history-gi cusba markaan nimaadno dawladii Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre ayaa madaxweyne ka noqday 30 sanadood buu ku gaarsiiyay dunida meel aan weligeed la gaarin ay Soomaali gaarin buu ku gaarsiiyay taariikhda ayuu galay Maxamed Siyaad Barre waad ogtiin afka Soomaaliga habar walba meel kasta ku qorayso afka Soomaaliga isaga ayaa qoray qof kasta Soomaali qorayso marka Soomaali bilaadarooda waxa weeyaan guri madow waa dark tunnel weeyaan Soomaali bilaadarooda waa dark tunnel waa dad aan lahayn history aan lahayn bay noqonayaan ayaam aswad bay noqonayaan indhaha bili aadanku leed bay wax ku arkaan kaligood waxa ma arkaan indhuhu waa burok inagu taala laakiin leed bay wax ku arkaan aqalka hadii lagu baqtiyo oo daaqadaha lagu xiro oo lagu madoobeeyo waxba ma arkaysid marka indhaha kaligood waxa lagu ma arkay waxa lagu arkaa iftiinka lagu arkaa marka daarad waa iftiinkii Soomaalida ninka diidan isaga halkan iman kara dunida wixii Soomaali magaca Soomaali dadka loo yaqaan waa daarood cid walba garanayso haddaad Philippines tagto Thailand tagto Taiwan tagto Japan tagto Shiina tagto oo tira Ilhaan waa gabar Soomaaliyeed waa daarood oo markaan gabdhaha sheegno Ilhaan waa daarood ayaan Cali Xirsan waa daarood dunida meel aan laga garanay ma jirto ayaan iimaan gabar la yiraahdo jiraysa iyaduna oo daarood boqol kale oo hablood oo daarood lamid ah Ilhaan waxay gabadha la yiraahdo iimaan waxay noqotay gabadha lagu aroosay Hawaii gobol la yiraahdo oo dadka liberty-ga dunida lacag leh ay ku aroostaan 3 milyan oo dollar dirica amba toob ah ayay xidhatay maanta David Bowie guursanaysa gabadhii ku jirtay ahayd feeling hesti Michael Jackson aan baxday ku jirtay ee matalaysa nafartiita iyo kilo badra warintaas soo daarood ma been baan sheegaya daarood Soomaa wasiirka Canada waa daarood wasiirka Kenya waa daarood difaac waa daarood aqalka Mareykanka la taliyaha arrimaha Afrika White House-ka odagan Biden la taliya waa nin Soomaali waa daarood Congress-ka Soomaaliya qofka jooga waa daarood looyarada dunida ka shaqeeyo oo dhan waa daarood ninka maxkamadda halkan jooga waa daarood war marka diido iftiinka Soomaali mar raba tiraahdo la culowdo sida Soomaaliland baa noqonaysa
going nowhere saan baad u meeraysanaysaa haddaad aqoontii iyo cilmigii iyo caqligii iyo garashadii iyo garaadkii iyo hoggaankii fiicnaa la celowdo halkaasaa somaliland baad joogaysaa muuse biixi baa yidhi waxaan xuduud baan ka hadlayaa iyo xuduud ka hadlaya xuduuddaad ka hadlayso soomaaliya xuduuddeeda waa la yaqaanaa xuduuddaad ka hadlayso waa xuduud qabeeliya weeyaan waa xuduud qabyaaladeed waa qabiil weeye qabiilkaagu waa burco iyo hargeysa iyo berbere iyo hargeysa iyo berbere iyo burco iyo gabiile weeyaan inta kale shaqo kuma lihid soomaali xuduuday ka leedahay qabaa'ila dadkii baad been ka sheegaysaa waxaanad ahayn baad ku sheegaysaa anigu saylac baan ka soo jeedaa waxaad igu sheegtaa somaliland war anigu somaliland may somaliland waa soomaali diid weeye gooni goosata somaliland diida soomaali diid anigu soomaali diid may soomaali baan jecelahay been baad naga sheegaysaa daaroodna habeen dhaar been baad ka sheegaysaa inta aad daarood farta ku fiiqayso ee daarood wax ka sheegaysana horumar ma keenaysid waayo meel walba iyagaa jooga xafiis walba iyagaa jooga maraykankana iyagaa jooga aqalka white houseka daarood baa jooga wiil daarood waxaa jooga biden la taliya waad ku qasbantihiin marka meesha idiin diraan wixii ay idin yeelaan inaad samaysaan calankii soomaaliyeedna waxaa keenay hargeysa ka taagay waa daarood waa jamaahiirta soomaaliyeed baa idinku qasbay marka awood aydan waxba ka qaban karin weeyaan waxaanad rabtaan aad la ciyaartaan you are playing the fire dab baad dhex boodboodaysaan dab weeye waxaad ku dhex boodboodaysaan waayo malihida siyaasaddii malihid siyaasaddu male cadowtinimo joogtaa waa saaxiibtinimo joogtaa un bay leed cadowtinimo joogtaa male daarood baa nacebahay oo beri baa diyaaradayna dul martay waxaasi ma shaqaynayaan inaad haddaad iskala heshiisaan beri horaad wax noqon lahaydin oo meelo badan bay idiin furi lahaan daaroodkaas haddaad la heshiisaan saas aniga ila muuqata intaad garaabada iyo qolooyinka gaagaabka iyo kuwa yaryarka iyo dameereleyda soo urursanaysa odhanayseen urur samaalaan nahay iyo dir baan nahay waxa la wixii gaagaaba laagaaba yaryarka soo urursataan baad tiraahdaa dir baan nahay ood la meeraysanaysaa waxa kugu qasbay waa daarood wey waxa kugu qasbay waa jamaahiirtaad kula dagaalamaysa waxa kugu qasbay soomaaliya dowlad kama jirta de waa dhiiqo waxa ka jira waa xasan dhiiqo 4 bilood buu aamusnaa oo la garaacaya laascaanood waxay ku dhimanaysaa waa calankii Soomaaliyeed qarannimadii Soomaaliyeed dowladnimadii Soomaaliyeed sharaftii Soomaaliyeed in Soomaali la kala goyn ayay u dagaalamaysaa Soomaali diid bay la dagaalamaysaa dhowr mar buu hadlay iska heshiiya hadalka doqonnimada daayooda waa ridiculous inaad heshiisaan labadiina qolo xaq iyo baadil baa heshiiya حقيقة بعد الميل كمان هالشيء أفر بلاد بيدقال قص عدين لاسعانو أو بالجراعة يوحل بقص عدين واد عامسناد واد تاهيسي ما تاد وحي أدل اللي هيدا الدش محاتري أرجع بانو مقعابي وجدد مركام حين قرنسا وهكي علي مهدي بعد مريسا علي مهدي وحول إذا مضى وقوي جوجا جبهة اسكو ديبان اسلم اسكو ديبان أدنى واحد له ما تجماهير الصوماليات أمبر دارود أبهرتي هسكو ديبو صومالي ديتكي معمول بلد كصومالي ديتكي هسكو ديبو دقم باطاي دقم حمار باطاي حسنو نئيف نعس باطاي حمارة ضميرنا نكا وطا مبالي ضميرنا نكا وطا ياسكال اسمعني برقل لك وطا ضمير باطاي عقلي مليد دقم باطاي دقوني ما كابو حدا صومالي نما مقرنا يسيد شرف مليهيد كرامد مليهيد واكا نووير قرن كي الصومالية مدحونا لا يردي وادقا والله ميرسانيسا نعس باتي عصان ديقو ميل الله مادية موريانتي وحكاقا سيدر موريان كي بالكان تصوفر السلح كلية لوان لما قابل لها إن هرقيسو بابادي بانتي كوبيا السقاشن كي لاس عانود بابادي كافر اللي بيصدو سنة كدب ويكواز بابيين والنوع عاسو كرا دad loo ya rabaa inuu wax u sheegan sideed loo iman kartaa amba jamaahiirta ugu sheegi kartaa oo kartaa waxana ergi isaaq bad ergi u tahay Soomaaliland nabadiidka ergi u tahay laakiin halkan shaqo kuma leh waa dhabar jabin wala dhabar jabinaya halkan kiba dhabarka laga jabinaya amba 19 kiba lagu noqonaya 19 burburkii qaranka كيم علي مهدي كيكو حيجينا واكا واسلا يجيون وهذا هو حمار برخصو استمارة والضمير حسن ديقو عقلي إيه عقوني يا جراد يا جراشون ماله
ونعس كاو اسماعيل مرجيل هو قامناي waxa kaloon rabay inaan kelmad ku idhaahdo ninkan waalana Faysal ee u baahan in geel lagu xiro Faysalow adigu waad waalan tahay daarood baanad ku waalatay daaroodna dunida Soomaali isaga ka masuula oo loo mitriyay meel alla meel uga bixi kartaa ma jirto waa kow waxa tiri Ciise iyad hadal qaaday Ciise inaad hadal qaada ma ahayn waayo inaad Ciise hadal qaaday waa nijaasnimo waa nijaas salaadaad naga jabinaysaa Ciise wax alla wuxuu ku weydiistay ma jiro ما ها قلوين كان قاقابكا ما ها ما ها در منا تونا ما عيسى دارود بوحلقة يبسانا يا وكل الكالصومالي دا ايشانات مدحوينيه كل الكايات جوغا حسبولي مدحوين واحد جوغا وغاس كيجي مصطفى إلى هاي راليها كهذا إنات كهذا الشبه وبريج والدنبي بعد قشي دنبي بعد قشي إنات كهذا الشعي يسوى كود دنبي والنجاس نمو صوب الله صوب دوغا هذا الشو صوب الله صوب أرمها إثيوبيا أرمها كل الصومالي دوغا هذا الشيء ماشي ما تعلو واتكو صور عدو واتكو حنقاعدة وحنقاعة وحاجة نجح الشو هداد هلا إسماعيل مرجل لك هذا إسماعيل مرجل له يروح عن الدولة ما نقضى وجبهات والصومالي الدين الصومالي ما ربنا بقول صومالي الدين ويان جبهات ويان دولة قلمان كباسة تيجي دي ماله شرفت دينا ماله ما أقول سنة إنه دونيدا أوردن هذا يقول سلطان أنا قاعد قدام بيننا استاد رايت هذا الكاس صح مية مية كجواب تان قف قرأ إساق وكجوابه مجرو كما جوابي كريسان لأنه السكوت هي علامة الرضا وهذا قوشين رجعنيمو شيرت إسماعيل مرجيل ورجعنيمو حسن دي قرأ إساق معمولة وهذا قار كاية وهذا النعس كاية مقدش تجوجي موريانتي إساق معمولة إذن كان إساق إذن معمولة والله كاية كلمة كاية هذا قف قرأ كجوابي كرا إسماعيل كلمة علين كرا مجرو عيسى ده ورقة سوي إن هذا الغداء ما وعمل كدع هن النجاسين أنه منين قاقابكا يريرها يرير إلى صور صنايو شرون شورتا كمن منين أنه دارود بمحلقة سنة إنه أبسماء يقبل الله يدارود ودم بعد قال كأنه ولا جرا دول كيجي نوار حرس سنة إذا كان يدين مباهنين عد كلنا مباهنين إلهي عدنا هنا وبهنا مجهته إن النصوح هذا القادنا وشرف دعوة نقطة أنك الديفالويشن نقطة أديك هو والن أو إنجيل لقول حدا وبهن إن هذا نجنا النصوح هذا قاد وعمل كدعوية